isarag maqal wanaagsan daawadayaal kusoo dhawaada wararkii ugu dambeeyay ee caalamka. amiirka sacuudiga ee dibadjoogga ah Khalid bin Farhan Al Saud ayaa sheegay inuu jiro qorshe socda oo la doonayo in afgambi loogu sameeyo boqor Salmaan iyo wiilkiisa dhaxal sugaha ah ee Maxamed bin Salmaan. waxaad dhawaan arki doontaan afgambi ka dhan ah boqorkaya dhaxal sugaha ayuu yiri Khalid bin Farhan Al Saud oo ka hadlayay dilka Jamal Khashoggi oo ah saxafi ka soo horjeeday boqortooyada Sacuudiga. Jamal Khashoggi ayaa waxaa la dilay 2 Oktoobar markii uu galay qunsuliyadda Sacuudiga ee magaalada Istanbul, waxaana cadcad loo jaray hilibkiisa kadibna lagu baabi'iyay aashita sida ay Turkiga u sheegeen. Khalid bin Farhan Al Saud ayaa shaaca ka qaaday in Khashoggi uu qorsheynayay inuu qoro buug xusuus qora kaasi oo sir badan shaaca ka qaadi lahaa, taasina ay tahay sababta loo dilay. Saudi Arabia ayaa qiratay dilka Jamal Khashoggi, balse waxay sheegtay in ay fuliyeen xubno fallaago ah isla markaana aan wax amar ah ka qaadan boqortooyada. Si kastaba, dunida oo idil ayaa aaminsan in amarka dilka uu toos uga yimid xubnaha sare ee boqortooyada. dhanka kale, dowladda Saudi Arabia ayaa lagu wadaa in ay maanta magaalada Geneva ay guddi qaramada midoobay hortiisa ka difaaci doonto heerkeeda xuquuqda aadanaha. kulanka dib u eegista oo ah mid joogto ah ayaa waxaa qasab ah in dhammaan dalalka xubnaha ka ah qaramada midoobay ay soo gudbiyaan heerarkooda xuquuqda aadanaha, kuwaas oo 4 sanaba mar la baaro. hase yeeshee, dib u eegistan Sacuudiga ayaa waxa ay imaaneysaa xilli dalkiisa loo soo jeediyey dhaleecayn caalami ah oo ku aadan dilkii wariye Jamal Khashoggi iyo dagaalka ay ka wadaan dalka Yemen. guddiga qaramada midoobay ayaa inta ay socoto dib u eegista waxa uu sidoo kale eegi doonaa xaaladaha xuquuqda aadanaha ee dalalka Shiinaha, Nigeria, Mexico iyo Jamhuuriyadda Bartamaha Afrika. Saudi Arabia waxa ay filan kartaa in la weydiiyo su'aalo adag xitaa ka hor dilka Jamal Khashoggi. ururada u dooda xuquuqda aadanaha ayaa ka digay in xukuumadda Riyadh ay iska dhaga tirayso talooyinka qaramada midoobay ay soo jeedisay ee ahaa in ay soo afjarto ciqaabta iyo jirdilka maxaabiista loogu geysto xabsiyada dhexdooda, iyo sidoo kale inay ogolaato mucaarad siyaasadeed oo si nabad ah ku howlgala iyo inay sare u qaadaan xuquuqda haweenka. hay-adaha gargaarka ayaa sheegay in dagaalka Yemen, halkaasi oo xulafada uu horkacayo Sacuudiga ay dagaal kula jiraan fallaagada Xuutiyiinta, uu horseeday in malaayiin qof ay qaar ka u fuulaan in macluul ay u wajahaan, iyadoo qaramada midoobana ay hayso cadeymo muujinaya in dambiyo dagaal la geystay. kulankan dib u eegista ee maanta ayay suurtagal tahay in xitaa saaxiibada dhawaa iyo kuwii saadka militariga ku iibin jiray ay Sacuudiga ka dalbadeen jawaabo cadcad. kulankan su'aalaha Sacuudiga lagu weydiinaya ayaa si toos ah internetka looga baahin doonaa, markaas oo qof kasta meel uu rabo dunida ka joogay uu daawan karo.